السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan fiyogan yara kooban kusoo bandhigaynaa hamaynu kaga hadli doonaa waxaad maqashay qof masqaniinay dabadeedna waxa lala gaadhay hospitaalka waxaana lagu mudeeyey dawadii ka hortagaysa ama daweynaysay sunta maska. waxaan ku hadli doonaa bal si aad arrinkaa u fahanto sida loo sameeyo dawada lafteeda sida loo sameeyo. dawadaasi waa dawo runtii waxay la mid tahay uun anti filim baa loo yaqaanaa waxayna la mid tahay uun bahalahan lagu mudo ee loo yaqaano vaccines-ka la yidhaahdo. waxaan maqashay qof baa masqaniinay qaniinyadii kadibna waxaa loola cararay hospitaalka si loo siiyo dawadii lagu daweynayay sunta maska. si aynu taa u fahanno horta sunta masku dhowr nooc bay u shaqaysaa. mid waxa weeyaan waxay joojisaa dareen wadaha jirkeena oo dareenka ay qofka ka joojisaa. qaar waxay taarget gareeyaan neefsiga oo neefsiga ayay joojiyaan. qaarna dhiigga ayay xinjireeyaan. marka sunta masku noocyo badan bay jirka u saameysaa marka ay ku dhacdo. laakiin tan aynu maanta ka hadlaynaa ma aha taa iyo qaabka u saameyso. waxa laga yaabaa inay fiidiyo kale kusoo bandhigno sunta masku qaabka ay u saameyso jirka. laakiin halkan waxaynu concentrationka ugu weyn aynu saaraynaa waxa weeyaan ama aynu doonaynaa inuu kaga hadalaa halkan hal qodob oo keliya oo ah sida loo sameeyo antivenomka waxa loo yaqaano, ama sida kale marka cagsiga loo dhigo dawada ka hortagaysa sunta marka qofka uu already qaniino masku haddii si fiican loo soo manage gareeyo muddada lasoo wado. waxaa dhowr habaa loo sameyn karaa in qofka laftiisaba marka hore sun la garanaya qiyaasteeda ama suntii lafta maska deegaanka u badan lasoo qaado oo kolba lagu mudo iyada oo yar kadibna stimulationkaasi uu muddo dheer qaato iyada oo dhakhaatiir ay joogaan dawadii antivenomkana waa haya haddii ay xuduudda ka baxdo qofkana muddo sidaa lagu silciyo kadibna uu soo saaro antibodieski. laakiin taasi ma aha dariiqada dawadan lagu soo saaro. dawadan waxaa lagu soo saaraa siyaabaha imika u badan ee loo isticmaalo waxaa ka mid ah in lagu mudo fardaha oo kale. tusaale ahaan video yar baan aad ka daawan doontaan ama videogaad hore ka daawateenba. videogaasi wuxuu idin tusi doonaa bal qaabka ay u dhacdo. suntii inta lasoo qaado maska ayaa waxaa la sameynayaa waxaa lagu mudayaa faraska marka lagu mudo marka horeysa lagu mudo wuu suuxayaa u dhacayaa muddo dee suuxsanaanaya kadibna wuu soo kacayaa haddana markuu yar nasto maalin kadib ama waqti kadib baa lagu mudayaa haddana waxa weeyaan sidii salmida ku dhacaysa laakiin wuu kasoo ficnaanayaa sidii hore waqtigii uu qaatay suuxdintii iyo dhibtii uu qaatay ee faraha badnayd mid ka yar ayaa ku dhacaysa. seerkalkaasi ayaa dhowr jeer lagu celcelinayaa bal si uu usoo saaro antibody aad u fara badan. dabadeedna marka uu lagu mudo ee marka dambe la arkay inaanu wax dhibaato ah aanu suntii ayna u keenaynin ayaa waxaa la sameynayaa waa dhiiggiisii ayaa sida videoga ka arkaysaan laga soo qaadayaa kadibna dhiiggaasi ayaa la purify garaynaya laga soo saarayaa intii wadatay difaaca jirka ee uu sameeyey farasku. taasaa marka hadhow marka uu isla maskii laftiisa suntiisa la isticmaalay ay qof uu magaranaysaa qaniino ayaa dawo ahaan loo isticmaalaya lagu mudayaa. marka qaabka ayaa qofka masku qaniino loola dhaqmaa. runtii waxyaalaha la sameyn karo wadanka laakiin aan weli cid u dhaqaaqday baan jirin. laga yaabaa inta mase wadankeena joogto in aadan loo garanaynin ama aan la tiro koobin aan la garanayn kuwa sunta leh iyo kuwa aan sunta lahayn sunta ay leeyihiin iyo qaabka looga hortagi karo inaan la tijaabinin. kolley waa iska bilow insha allah waan heli doonaa laakiin waxaan jeclaystay un laga yaabaa inuu qof imika ku guda jiro oo barnaamijkaa sameynayay uu jiro. ilaahay sunta maska iyo dhibaatooyinka waa inaga ilaaliyo laakiin qaabka loo soo saaro ee loo harfast gareeyo loona produce gareeyaa waa qaabkan. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. haddii markii koowaad ayaad ana aragto tahay channelka waxaan kaa rajeynaynaa inaad kusoo biirto si cilmiga iyo aqoontaada u dhiirigeliso. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.